بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو waxaan ku baran doonaa qaabka aad akoon uga samaysan kartid Zoom marka hore waxaad booqanaysaa website-ka zoom.us kadibna waxaad leedahay sign up it is free markaas kadib waxa kuu soo saarayaa text boxkaas waxaadna ku qoraysaa ciwaankaaga waxaadna leedahay sign up intaas kadib Zoom waxa uu ku dirayaa message la dhaho activation email buu ku soo dirayaa message-kaasna wuxuu ku dirayaa email-ka aad ku qortay Zoom-ka hadduu ahaa Gmail hadduu ahaa Yahoo ama hadduu ahaa Hotmail intaa kadib waxaad booqanaysaa Gmail-kaaga ama Hotmail-kaaga kadib waxaa kuu soo baxaysa please activate Zoom account markaad message-ka furtid intaas kadib waxaad dhahaysaa activate account intaa kadib waxaa kuu saarayaa inaad activate ku samaysid akoonkaaga waxaad ku qoraysaa magacaaga koowaad iyo magacaaga labaad kadib waxaad qoraysaa password dabcan passwordkaas waa inuu noqdo password ka samaysan capital letters numbers iyo sidoo kale calaamad intaa kadib waxaad leedahay continue intaa kadib wuxuu kuu saarayaa daaqad uu ku weydiinayo haddii aad ku casumaysid colleagueskaaga invite colleagues uma baahnid inaad cidna ku casumtid waxaad dhahaysaa skip this step intaas kadib waxa uu kuu soo saarayaa daaqad ay ku qoran tahay start meeting now iyo go to my account waxaadna dhahaysaa go to my account intaas kadib account-kaagi waa la sameeyey wuxuuna ku keenayaa profile-kaagii waa mahadsantihiin